aad klibka ku aragto ama sida muuqaalka ka aragto qalabkan meesha yaal qalabkan waa qalab dhanka fanka ama dhanka fanka loo adeegsado marka muuqaalada la duubayo ama marka codadka la qabanayo ama dhanka muusikada marka waxaan fanaankan looga dalka dibadiisa waan xalli kara wax oo lagu furxa ama waxa si ahaantiisa shakhsiyadiisa sida uu muuqaalka ka arkayso sida uu faraxsan yahay ama sida uu dhowl cadeynayo midaasna waa wax oo shakhsiyadiisa ama noloshiisa sida maanta horumarka ama nafsiyan u gaarsiisaya noloshiisa ama heerkiisa ay sare marayso marka fanaan waliban uu u baahan yahay qalabkan oo kala si ay muuqaalada ama muuqaala qurux badan ama dhan muusiko tayle ama erayad wax walbo cod tayle oo soo duubo waxaan dhihi karnaa wax u baahan qalabkan fanaan waliba ama dadka fanka xiiseeyo oo dadka amal fanaaniinta ku soo biiri doono waa muhiim in ay qalabkan helaan si ay wax quality leh ee dadka bulshada ku xiran ama dadka taageero ay u soo gudbiyaan ama hawada ay u soo galiyaan marka waxaan dhihi karnaa inuu horumarinayo ama horumar baahsan inuu sameeyo oo rabo taas ay ku cadeynayso sababtay tahay duub soo gatay ama oo qalabkii oo muuqaalada ku duubayay ama heesaha ku sameeysan laha ama dhanka muusikada marka waana wax in oo rabo in horumar fara badan oo ka sameeyo meesha uu taagan yahay ama booska uu taagan yahay wuxuu rabaa in horumar badan ama aad iyo aad waqti xaadirkan oo kasii sameeyo ama sanado dambe midaasna waxaan dhihi karnaa waa wax ay hantiis u rumoomayso ama riya si u rumoomayso sababtay tahay wuxuu ku ohayaa dadaalkii ama wadadii wuxuu hayaa oo ku sameey lahaa ama horumarkaas oo ka sameey lahaa sababtay tahay fanaanka haddii uu haysan qalabka ama codka lagu qabto ama muusikada aan haysan ama qof muusika u tunto aan haysan ama qof muuqaalada mar walba oo hees oo soo sameeyo just qofkaas isla marka ay muuqaal ka qabaneen ama isla marka ay muuqaal ka duubeen waa waxyaabaha keeni karo caqabadaha ama dhankaaga fankaaga haddii noqoto laakiin wixii haddii aad haysato just ama aad sameyn karto in aad wixii haysato dad kaliya ama qof oo kaliya waca karto oo wixii kugu caawiyo waxay noqon kartaa in wax walba aad si easy u sameysan karto ama waqti walba aad ahaantaada u baahan tahay aad sameysan karto oo aad adiga ahaantaada xuriyad fara badan aad dareemayso markaas waxaan dhihi karnaa taas ay taxadar badan oo ka sameeyay si uu mar walba u soo saaro heeso quality-giisa sareeyo ama mar walba dhanka YouTube-kiisa ama dhanka social media oo ku soo baahiyo waxaan dhihi karnaa waa fanaaniinta dambo ama fanaaniinta soo bixi doonto ay ku dayanayaan fanaaniin sanadada dambe soo bixi doona way ku dayan doonaa si ay mar walba ay u guuleystaan ama guul aad iyo aad u tayo leh ama guul la taaban karo ay u gaaraan fanaaniin fara badan oo waxa jiro sanado fara badan ku jiray dhanka fanka laakiin aan ka miro dhalin ama miro aad iyo aad u badan aan ka sameynin fanaaniintaas fanaaniin la soo koobi karo ama meesha magacooda ka xus doono ma ahan laakiin waa fanaaniin aad iyo aad u fara badan laakiin jeclaa hami aad iyo aad u dheer laakiin oo la imaan hadana hami iyo qofka jecel inuu wax walba oo mar walba oo wax horumar oo sameeyo hadii lama imaanayo dadaalkii ama horumarkii uu ku sameey lahaa marka waxaan dhihi karnaa in fanaankan ay ku daydaan ama fanaankan dhanka dadaalka ama dhanka oo mar walba heesa u soo saaray tayo leh